Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena dhacdooyinka caalamka oo aan ku soo qaadan doono haweeney sidatay bam gacan ku samays ah ayaa sababtay dhimashada 3 qof halka ugu yaraan 21 kalena ay ku dhaawacmeen qarax fiidnimadii ee Sabtidan ka dhacay meel u dhow maqaayad heer sare oo ku taala bartamaha magaalada Moscow iyadoo guddiga la dagaalanka argagixisada ee Ruushka ay sheegeen in aan haweeney oo wali aan la aqoonsan isku dayday in ay gudaha u gasho maqaayadda iyo booliska oo sheegay in dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo kala duwan kuwaas oo qaarkood ay culus yihiin halka kuwa kalena ay fudud yihiin macluumaad arintaas ku saabsan intaan ku guda jirno barnaamijkan ayaan idin soo gudbin doonaa haddii Rabbi ogolaado sidoo kale barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku dib u dhigi doono weerar cusub oo lagu qaado Iran inta laga gaari karo heshiis degdeg ah oo lagu joojinayo hamiga nuclear-ka ee Tehran isla markaana dib loogu furayo marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz. Dhaxal sugaha Sacuudiga oo ku baaqay wadahadal iyadoo Iran heegan sare ay ku jirto. Waa maxay cadaadiska siyaasadeed uu ku sii kordhayo Trump iyadoo qiimaha shidaalkana cirka isku shareerayo. Sidoo kale barnaamijkana dhacdooyinka caalamka waxaan ku soo qaadan doonaa ciidamada Israa'iil ayaa ugu yaraan 8 qof oo Falastiiniyiin ah ku dilay duqeymo ay ka fuliyeen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza iyadoo dadka la dileen ay ka mid ahaayeen nin iyo haweeney ku geeriyooday weerar diyaarad qumaatiga u kacda oo helikabtar ah oo Israa'iil ay leedahay ku qaaday guri dabaqa oo ku yaala koonfurta magaalada Deir el-Balah. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ayaan ku soo qaadan doonaa intaan ku guda jirno tabinta barnaamijkana dhacdooyinka caalamka ha yeeshee intaan u guda galin faahfaahinta qodobadaas oo idil daawada waxaan ka codsanayaa muuqaalka like noo saar la wadaag asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn bahdeena fadlan nagu soo bir oo ka mid noqo bahdayada ee Hoggaan Media ka qayb qaado kor u kaca channelkeena waa maalinimo Axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 2 Agoosto sanada 2026 magacaygu waa Haashim Aadam ku soo dhawo barnaamijkana dhacdooyinka caalamka aynu ku bilownay haweeney sidatay bam gacan ku samays ah ayaa sababtay dhimashada 3 qof halka u yaraan 21 kalena ay ku dhaawacmeen qarax fiidnimadii Sabtidan ka dhacay meel u dhow maqaayad heer sare oo ku taala bartamaha magaalada Moscow sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Ruushka. Booliska ayaa sheegay in qaraxu dhacay wax yar ka hor 8 fiidnimo waqtiga maxalliga ah meel u dhow maqaayad Talyaani oo ku taala mid ka mid ah 7 dhisme dhaadheer ee caanka ah xilligii Stalin ee laga dhisay fagaaraha Kudrinskaya. Haddaba guddiga la dagaalanka argagixisada ee Ruushka ayaa sheegay in haweeney aan wali la aqoonsan ay isku dayday in ay gudaha u gasho maqaayadda balse waardiye amni ayaa ka hor istaagay baa la yiri. Wakaaladda wararka ee dowladda Ruushka ee RIA ayaa warisay in haweeneydaasi waardiyihii amniga iyo mid ka mid ah macaamiishii ku sugnaa maqaayadda Talyaaniga ee lagu magacaabo Belzerosi ay ku dhinteen qaraxii xigay. Boolisku wuxuu sheegay in dadka dhaawacmay ay qabaan dhaawacyo kala duwan kuwaas oo qaarkood ay culus yihiin halka kuwa kalena ay fudud yihiin. Haddaba wakaaladda dowladda ee RIA ayaa sidoo kale baahisay muuqaalo muujinaya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan laamaha ammaanka oo ku sugan goobta qaraxa uu ka dhacay iyadoo aagaasi gabi ahaanba laga xiray dadweynaha. Mas'uuliyiintu ma shaacin magacyada dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay mana aysan sheegin cidda ay tuhunsan yihiin inay ka mid ama ka dambayso weerarkan. In ka badan 4 sano kadib markii uu bilowday dagaalka baaxadda leh ee u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine, hay'adda ammaanka ee FSB ayaa horaantii sanadkan sheegtay in ay xoojin doonto ilaalinta saraakiisha sarsare ee ciidamada Ruushka. Tallaabadan ayaa timid kadib dilal iyo isku dayo dil oo isdaba joog ah kuwaas oo Moscow ay ku eedeysay dowladda Kiev. Haddaba wargeyska Kommersant oo xiganaya ilo u gaar ah ayaa qoraya in bamka loogu talagalay in lagu waxyeeleeyo laguna dilo martidii ku raaxaysanaysay fadhiisanka banaanka ee xagaaga ee maqaayadda. Wargeysku wuxuu intaa ku daray in bamka laga yaabo in meel fog laga qarxiyay isla markaana haweeneyda sidatay laga yaabo inaanay ogeyn in waxa ay wadatay ay ahaayeen walax qarx ah. Bogga rasmiga ee maqaayadda ayaa lagu sheegay in goobta maalinta Sabtida u xirneed munaasabad gaar ah oo aan dadweynaha loo ogoleyn. Haddii aan eegno qodobka yaga ee xiga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa fiidnimadii Sabtidan sheegay in Mareykanku dib u dhigi doono weerar cusub oo lagu qaado Iran inta laga gaari karo heshiis degdeg ah oo lagu joojinayo hamiga nuclear-ka ee Tehran isla markaana dib loo furayo marinbiyoodka istiraatiijiga ee Hormuz. Trump ayaa qoraal uu ku baahiyay bartiisa social ama Truth Social ku sheegay in Iran iyo dalal kale oo bariga dhexe ay codsadeen waqti dheeraad ah si loo dhameystiro heshiis horseedi kara in marinbiyoodka Hormuz si degdeg ah gabi ahaanba oo buuxda
ee kadib loo furo isla markaana meesha looga saaro waxa uu ku tilmaamay halista nuclear-ka Iran. Madaxweynuhu ma uusan magacaabin dalalka ula jeeday qoraalkaas, kaas oo yimid kadib wadahadal ee dhanka taleefanka oo dhexmaray isaga iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Mohammed bin Salman oo xulafo muhiim u ah Mareykanka. Trump ayaana yiri, iyadoo la tixgelinayo codsigan, waxaan ogolaaday in aan baajiyo weerarka si loogu danaysto mustaqbalka dunida iyo sidoo kale badbaadada Iran oo noqoto dal ku guuleysta isla markaana barwaaqo ah, balse arrinkaasi waxay ku xiran tahay in si degdeg ah oo heshiis loo gaaro. Wuxuuna intaa ku daray in Israa'iil ay la wadaagto buu yiri go'aankan. Maamulka gumeystaha Israa'iil ayaan si degdeg ah ugu jawaabin codsi Axadii loo diray oo lagu weydiinayo faalo ku saabsan hadallada Trump. Waayahay, dhaxal sugaha Sacuudiga oo ku baaqay wadahadal iyadoo Iranna heegan sare ku jirta. Sida ay baahisay wakaaladda wararka dowladda Sacuudiga, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Mohammed bin Salman ayaa intii uu la hadlayay Trump carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in mudnaanta la siiyo wadahadal iyo diblomaasiyad si loo dejiyo xiisadda Bariga Dhexe. Haddaba sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa Reuters u xaqiijiyay in labada hogaamiye ay wada hadleen, hase yeeshee ma bixin wax faahfaahin oo dheeraad ah. Go'aanka Trump ee muujinaya in uu doonayo dejinta xiisadda kadib maalmo ay labada dhinac isdhaafsadeen hanjabaado ku saabsan weeraro cusub ayaa noqday isbeddelkii ugu dambeeyay ee dagaalka Mareykanka iyo Israa'iil ay bilaabeen 5 bilood ka hor. Iran ayaa si weyn u xanibtay maranbiyoodka Hormuz oo ka hor dagaalka ay mari jireen qiyaastii 20% shidaalka iyo gaaska dabiiciga dareeraha ah ee LNG-ga loo yaqaano ee dunida. Tallaabadan ayaa sare u qaaday baa la yiri qiimaha tamarta, waxayna sii hurisay sicir bararka caalamiga ah. Haddaba wakaaladda wararka ee Mehr ee Iran ayaa Axadii warisay in saraakiil militari Iraaniyiin ah kuwa aan magacyadooda la shaacin ayaa hadalka Trump ee sheegay in Tehran ay doonayso in la joojiyo weerarada uu ku tilmaamay been abuur cusub oo loogu talagalay in cadaadis lagu saaro dalalka Carabta ee Khaliijka. Haddaba saraakiishaasi waxay sheegeen in ciidamada Iran ay weli ku jiraan heerkii ugu sareeya ee heegan, ha ahaato in Mareykanku dagaalka sii kordhiyo ama uu dib ugu laabto. Waxay sidoo kale ka digeen in haddii iska hor imaad militari uu noqdo mid aan laga baaqsan karin natiijada lagu kala bixi doono goobta dagaalka. Tehran ayaa horey uga digtay Mareykanka inuu ka fogaado waxa ay ugu yeertay tallaabooyin halis iyo khamaar siyaasadeed leh, iyadoo ay sheegtay in ay si adag ugu jawaabi doonto weerar kasta cusub oo lagu qaado bartilmaameedyada Iran. Ugu dambeyntiina ciidamada Israa'iil ayaa ugu yaraan 8 qof oo Falastiiniyiin ah ku dilay duqeymo ay ka fuliyeen qaybo kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza, sida ay sheegtay hay'adda difaaca madaniga ee Gaza. Dadka la dilay Axaddan waxaa ka mid ahaa nin iyo haweeney ay ku geeriyoodeen weerar diyaarad qumaatiga u kacda ee helikobtar oo Israa'iil ay leedahay ku qaaday guri dabaqa oo ku yaala koonfurta magaalada Deir al-Balah, sida ay sheegtay hay'adda difaaca madaniga ee Falastiin. Duqeymo kale oo goobo kala duwan laga fuliyay ayaa sidoo kale sababay dhimashada dad kale, waxaana ka mid ahaa 3 qof oo lagu dilay magaalada Khan Younis iyo 1 qof oo lagu dilay magaalada qadiimiga ee Gaza City. Weeraradan ayaa dhacay Axadii 2 maalmood kadib markii guddiga nabadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo saaray qorshe ka kooban 15 qodob, kaas oo lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo heshiiskii xabad joojinta Gaza ee la gaaray sanadkii hore. Si kastaba ha ahaatee, duqeymuhu waxay sii wadeen habkii hore ee weerarada Israa'iil inkastoo ay jiraan dadaallo diblomaasiyadeed oo horumar laga sameeyay. Ilaa iyo hadda qorshahaasi si rasmi ah looguma hirgelin gudaha Gaza. Xamaasna waxay sheegtay in hubkeeda ku wareejin doonto meel lagu keediyo oo kaliya marka Israa'iil ay joojiso howlgaladeeda militari isla markaana ciidamada ay kala baxdo Gaza si waafaqsan heshiiskii la gaaray sanadkii hore. Saraakiil Israa'iili ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Israa'iil aysan ciidamadeeda kala bixi doonin goobaha ay hadda ku sugan yihiin ilaa iyo Xamaas ay sameyso waxa uu ku tilmaamay hubka dhigis dhab ah oo la xaqiijin karo. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si rasmi ah uguma hadlin hindisahan cusub, hase yeeshee wasiirka amniga qaranka Israa'iil Itamar Ben-Gvir oo ka tirsan garabka midigta fog ayaa ku tilmaamay qorshahan mid aan la aqbali karin, isagoo sheegay in Israa'iil ay sii wadi doonto bartilmaameedsiga hogaamiyaasha Xamaas. Dhanka kale Maxamed Dahlan oo horey uga tirsanaa saraakiisha sare ee ururka Fatah isla markaana haatan ku sugan Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah sodoga Donald Trump isla markaana ka mid ah la taliyayaasha sare ee hindisaha Mareykanka u sheegay in Israa'iil ay ka shaqeynayso ama ay kala shaqeyn doonto sidii loo joojin lahaa weerarada lagu hayo Gaza. Muuqaalka like saar, la wadaag asxaabtaada haddii aadan ka mid ahayn bahdeena, fadlan nagu soo biir
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.